يد حكم محكمة maalintii ay taariikhdu ahayd 3 bishii 3 2015 maxkamadda darajada koobaad ee ciidamada qalabka sida waxay u fariisatay dacwad iqaabeedkii loo haystay eedeysane 2 alif le 3 6 5 hal Abdulqaadir Hussein Xasan 23 jir ah ina Maryam Maxamed Nuur ku dhashay Baay degan Xamar ka tirsan guutada lixaad ururka koobaad qaybta 12aad ee xoogga dalka Soomaaliyeed kaasoo xafiiska xeeraanta maxkamadda ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyay in uu si bareera oo ku talagal ah u dilay marxuum Maxamed Yamow Ahmed taariikh 4 bishii 10 2014 dilkaas oo ka dhacay degmada Dharkeeley doodeer kadib maxkamaddu markay aragtay eedii uu soo gudbiyay xeerlaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida oo ku xusneyd aayadda 178 suuratul baqara aayadaha 33 45 ee suuratul maa'ida iyo qodobka 434 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka 19 xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida markay aragtay qiraalka eedeysane 2 alif le 3 6 5 hal Abdulqaadir Hussein Xasan oo uu ka hor qirtay garsoorka maxkamadda ciidamada qalabka sida hortiisa kana hor cadeeyay in uu 3 xabadood ku dhuftay marxuum Maxamed Yamow Ahmed una geeriyooday xabadaas markay dhageysatay marxaatiyaashii la horkeenay maxkamadda midna ay u weydiisay marag furkooda waxay maxkamadda ka hor cadeeyeen in Abdulqaadir Hussein Xasan uu dilay marxuum Maxamed Yamow Ahmed markay dhageysatay doodii qareenka oo ahayd in eedeysanaha loo naxariisto loona eego sifaalaha dambiga fududeeya maadaama uu sheegay in uusan si kasa u dilin marxuumka sidaas darteed maxkamaddu waxa uu cadaatay in gacan ku dhiigle 2 alif le 3 6 5 hal Abdulqaadir Hussein Xasan uu yahay dambiile galay dambiga lagu soo oogay waxayna ku xukuntay dil toogasho ah cidii aan ku qanacsanay xukunka maxkamadda waxa u furan raacfaan maxkamadda darajada koobaad ee ciidamada qalabka sida ayaa maanta sidoo kale waxa kamid ahaa ragga xukunka ay ku riday Abdulqaadir Cilmi Shire oo ahaa dhagarqabe ka tirsanaa maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab waxna ka soo maleegay qaraxyo iyo dilal qorsheysan oo magaalada Muqdisho Al-Shabaab ay ka fuliyeen waxayna maxkamaddu ku riday xukun xabsi daa'in ah sida uu mar kale sharaxayo kaaliyaha maxkamadda darajada koobaad ujeedada xukun maxkamadeed maalintii ay taariikhdu ahayd 4 bishii 3 2015 maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay u fariisatay dacwad iqaabeedkii loo haystay eedeysane Abdulqaadir Cilmi Shire ina istaahil Shire 25 jir ah ku dhashay degan Xamar Jajab kaasoo xafiiska xeeraanta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyay in uu ka tirsan yahay ururka Al-Shabaab qaybta fulisa qaraxyada asagoo wax ka fuliyay qaraxyadii ka kala dhacay dekada Muqdisho safaaradda Turkiga iyo xeebta Liido doodeer kadib maxkamadda markay aragtay eedii uu soo gudbiyay xeerlaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida oo ku xusneyd qodobka 221 jiitin qodobka 222 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka koowaad xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida markay aragtay qiraalka eedeysane Abdulqaadir Cilmi Shire oo uu ka hor qirtay garsoorka maxkamadda ciidamada qalabka sida kana hor cadeeyay in uu ka tirsan yahay ururka Al-Shabaab isla markaana uu wax ka ogaa qaraxyadii ka kala dhacay dekada Muqdisho safaaradda Turkiga iyo xeebta Liido markay dhageysatay marxaatiyaashii la horkeenay maxkamadda midna ay weydiisay marag furkooda waxay maxkamadda ka hor cadeeyeen in Abdulqaadir Cilmi Shire uu ka tirsan yahay ururka Al-Shabaab lana shaqeynayay markay dhageysatay doodii qareenka oo ahayd in eedeysanaha loo naxariisto loona eego sifaalaha dambiga fududeeya maadaama aysan jirin wax asaga gacantiisa ku geystay sidaa darteed maxkamadda waxa uu cadaatay in shabaab Abdulqaadir Cilmi Shire uu yahay dambiile galay dambiga lagu soo oogay waxayna ku xukuntay xabsi daa'im cidii aan ku qanacsanin xukunka maxkamadda